suugaanta Soomaalida waa suugaan cajiiba runtii inaynu baranno oo maxaa la yiraahdaa abwaanadii baa inala jooga oo nool maanta marka inaynu maaragtay caruurteena aynu barno oo aynu Soomaaliga barno runtii waa wax muhiim ah wiil halkan wax ku bartay ayaa guursaday markaa maalinta ma arkay nasaan ku yiraahdo iyo waran maxamed caruur inta markaas iyo laba nin iyo naag bay joogay ee qabso وانا حياريكي بارك وابو يا لو nin iyo naaga jooga kula marka waxa weeyaan inaan caruurta af Soomaaliga barno ya oo aynu maaragtay aynaan maaragtay qof aaba ah oo Soomaaliya oo maaragtay arinta ku hadlay maxay caruurtiisa noqon doontaa mid baad la hadlaysaa ay aad ma jooga qolku yaala suuqa soo daawade maaragtay yaa soo dhan waa Soomaali dalqaaf marka hal barto suugaanta Soomaalidu waa suugaan weyn وسؤال علمي حتى Soomaalida waxa ugu yaabadnaa gabaygii gubal la oran jiray 12 kan nin ay suuhan celinayeen runtii waad yaabaysaa waxdaaniyada Ilaahay iyo maxaa la yiraahdaa diinta sida uga muuqato mar walba waad ya waad ku arkaysaa hada si raacay xitaa ifan waqtigii dambe dawladnimada qaadanay riwaayadihii la keenay iyo suugaantii muusiga ku ladnaa marka laga reebo كله وحكوا ذا أركيسا وحدانية إلهي محل يرادا إسلامنمو يا أيات كأركيسا بني بانين قاري يقول كل النورا قولك ويرادا بهدي أي قرآن تاي أي كقادون واي يبقى غادي تشفتيو سنة بيوها مسيتي هذا النبي نوح وانو ملايين ياوي هنو كران واي مسيتي دور التواتي كنا واقع مركا إنو النبي نوح وانو ملايين ياوي مركا سيدا سي سوغانتا الصوماليدو مثال فرح ايق شنتو ميل قولا كيال إلهي بان مصرين أدون كان لقو مسلا مربا يحولوهم مردان مرنا واد كأردا أدون مقعبا كهدا إفكنا ما أنت أقول هموديني معلميه قاربا ضمي ايق ميل كسا دين عوالبا ساسا دو واحكي سايني مارك سوغان تهلا برتو